KNN nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midimiidaysay maahino si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan سلام الله eebowna badbaadi war qamiistii hore ay ahayd Makka al-Mukarrama wali laga manasan hugtaan kal maxay tahay war qarixii qamiistii Makka al-Mukarrama qoladii dhiiga umada cabi jirtaa ku casheeynaysi kan maanta dhaco qamiisane quraac wahay quraac afka Allah ku naqo warkii Makka al-Mukarrama waa fogay kan checkpointiga madaxtooyadu yimid anigu waxaan ka baqayaa wadada number 4 kiiloomitir 0 inta u dhaxaysa in sida xarunta nabad sugidda laamiga ganjeelo lagu xiro aryaadaha shabaab qaraxyadu sabdiga ayuu ahaa jireen timaa qamiis loo rogay haddana ka qamiis bay qaraxii ka dhigeen qorshihii sabdigi ma khasaare yareeyey mase sixirkaa u qabto oo u wareeji qamiis warnimiyow shabaab waxaa loo yaabaa markay qaraxa arbaco u beddelaan sababtoo ah arbaco lagama guulaysto war sabti iyo arbaco iyo qamiis qof isqarxinaya miduu rabo isqasqaasayaaye maanta qaraxii maqaayadaha dhexdooda ka dhacay dad shacab oo waxba galabsan ayaa ku dhammaaday ciidanka madaxtooyada ilaalshana in fanfaninku soo gaaray waa filaya laakiin intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacaana Allah u boogadhayo waxaan sadhihi lahaa magaaladii dhagax baa qabsaday qaraxna waa yaal qac markuu yiraahdaa askari qoriga boobtaa qofba meesha uu doono baas ku qufaya shacabkii khasaara ku dhacay quusna waaya warani waxaan la yaabanahay qaraxa markuu bul yiraahdo oo ma waxba loo jeedana qiiq cirka isku shareeray askarta ayadan waxba fiirnay xabadaha furayaan ya xadula yaabay askarta qaraxdo bug yiraahdo balaayo isla rooraysa ama hoosta idinka soo gashay isleeyin asay qoryuhu la baxaan dadkuna in yasasaana laga yaabaa sidaas in xabada ku gaaraan walaalo masaasa lagu jiraahe aryaa warkayga dhaxgalina iga maqla balaya buga deytira shadu weesla baygagta balaya buga deytira bulshadu weesla baygagta ya haday askartii baygage shacabkii yaa badbaadiha banduuqadii wax lagu xalli lahay qoon la wixii adduunka joogan waa khasaari lahaayeen ebadkay qoolay bunduq lagu ridaayo maarag war baladan Allah naga xijaabe waxa dadku la yaaban yahay shacabkii dariiqay maraanay weysan yihiin nimanka balada sidaana siday u soo socdaan madaxtooyada iridkeeda iska imaanayaan xagay soo maraan ama beeso soo fuulan he waraamay dhaw soo xileen dhaw warnimayo anigu waxaan ka baqayaa qaraxa laftiisa in lagu shirkoobay adawaardiyahaagu soo deeyay cid ka difaaci karta ma jirto war waxa la yiri mid bashaar haqaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan war qaraxyadan qarax ka weyn ayaa jir war ma haysan qaraxi soobamow ka weyn yahay xanta Kenya laga sheegay haday run tahay waa qarax arurtaan dhali doono aanadiis ay gaari doonto afka Allah ku naqoryan hoy markaas ilaahay mana joojiyo war madaxweynuhu shalay galab uu yimid laakiin waa daalanaya filaaho wali warka ma soo bixin war meeshaan nasiina ma taale maalin kasta qarax baa ka buglehe madaxweynaha war baa laga rabay waxaana la yiri dal dhan ruux matalaya hadduu shaqo ka soo laabto adduunyada wuxuu kala kulmo la isku soo raacay dadka inuu u faahfaahsho waa lagama maarmaane wax la qariyo qurun baa ku jira duul horaa yiriye kulmiye lagama soo dayn waxay madaxdu sheegeen maxaa lagu heshiiyay bulshadii nagu wareersheene dadka maxaan u sheegnaa war bay naga sugayaan saaxiib sheekadaasi waa tiimahad salaadiyo cabdiraxmaan cabdishakuur intaasaan ku soo koobaya yaana sii badinina horta dadka waxaan u sheega ma aqaan sababtoo ah warbaahinta Kenya waray sheegeen tan Itoobiyana mid kale oo ka duwanay sheegeen midaan Soomaaliyana wax kale oo ka duwanay sheegeen la yiri xagay ka keeneen madaxda ma hadlina ila lagu kalsoon yahay ay ka keeneen wariya warkaan deynay Cabdinuur aan ka soo xiganay isha baydhabo ayaanta ma biyo ma keenin wariya buda ila baydhabo hamii imaanaha qulqulo hayta laakiin lanko aan hirinta usi dameere ka dhaamiyo hay maamulka koonfur galbeedna ma ilanka baahanya ili baydhabo ogaantii la hayni ina qulqulo lagu faday lanko aan hirinana wareysha baydhabo ninka dameerada ka dhaansada maamulkii lafta gareen ka horeeya siyaal yiri war waxay saystaa Uhuru Kenyatta iyo farmaajo maahana waa Soomaaliya iyo Kenya anu madaxweyne farmaajo waxaan leeyahay akhbaar laga sugayaa amustaye maxaan kugu aamina qoraan waxaa loo yiri baddo
kacsan ninkii malaayka la soo baxo geesi anigu geesiyaal waxaan u aqaanaa kuwan qaraxa sida dadkii iska celiya mahora ku naqa war xildhibaan brofesor dalxa waxa uu yidhi daraad shaki waxaa la geliyey dacwadii badda shalana shidaalkii qarankaa la xaraashay maantana madaxweynuhu waa tanaasulay berrina waxaan ka baqayaa ayuu yidhi beecinta webiyada dalka warya webagilagadaawad sheegas maayta galanbamaniyanka jiro gownaajeebi shabaaba degana war brofesor dalxa ma mucaaradku ku biiri ama xog rasmi u haya war shale markuu ra'iisul wasaare khayre soo xidhay shirkii arrimaha haweenka looga hadlayey wuxuu yidhi ragga la soo casuumay iyo inta xoogga ku timidba waan salaamayaa war shirka arrimaha haweenka looga hadlaye raggu maxay ka soo dooneen war raggu meel naagahoodii joogaan xaggay ka aadayaan waranamay baa lahaa bilaamay heliya uniina siin leheliyaane bilaamay heliya aryaama saca weyn lagu helihaa xeeyihin waxaad sheegayso war annagaa kuu fasilayna wuxuu yidhi dhegayso wuxuu yidhi haweenow heshiiya aan idinla heshiinne haweenow heshiiya war waxaan maqli jiray waa markii ugu horraysayd madaxda dawladdoo leh anuguna markii ugu horraysaa waxaan dhegaystay weriye takfiir waraysanaya waxaase iigu darreed markuu su'aalay weriyuhu 8 jirka caqiidada aad ku disheen maxay tahay iyo dembiga uu leeyahay kii la waraysanayana wuxuu ku jawaabay horta annagu takfiir maahayne waxaana la yidhaha jamaacatul ikhlaas dadkana waxaan isku khilaafsannahay caadooyinka iyo khuraafaadka iyo balaayada ay ka daba wareegayaan wiilkana dadkii dilay annagaa ku daba jirnoo rabna inaan maxkamad soo saarnu yidhi war xuseen cabdulla markuu wadaadka su'aalaha ku wareeriyey wuxuu ugu jawaabay wadaadkiina wakhti aad firaaqa heshid isukaanna keen anaa si fiican kuu tashkiilinaya ilaahayow xuseen cabdullo takfiirahay tusin yahe wax ka dhaadhici kara dilka ayagaa lagu eedaynaye waa ku daba jirnaa wadaadkuma dawladdu ka bartay war waxaan idin libintaadu ham u qabtaan ninkii holliyaa helee haddaan hooyadii la tabin miyuu hanad kuu dhashaa waxay huwan tahay murtidu dadaal baa laga hodmaa nasiibku hiliya war gowigaada shirkii haweenku anfaca lahay maxaa shalay ugu qaybgeli weyse war murtidu rag iyo haween uma kala socna ummaddoo dhan baa la rabaa inay gubaabada aqbasho dareenkoodana muujiyaan cadowgana iska difaacaan aryaadhaha waxaa la yidhi soomaalidu lama nuuc waayo how mid dhaawocow dhammaystira midna dhiintow uu boogdhaya mid dhaawocow dhammaystira midna dhiintow uu boogdhaya haye war erigu sidaas maahan dhammaan soomaali waa isku dhiig ninkii dhintaana waa dhibkood annaga waxaan dhahnaa ninkii dhinto kabtiisaa karoon war annagu bili'aadan aan la hadlaynay warnimada waxaan leeyahay abiy axmed dan buu leeyahayo waanan garanayne nabadoon hadduu yahay wanaag lagama diideene macawisiya waxaan siin lahayn goy iyo shaarkeeda soomaalida yar iyo weyn ka badan oranba haafkeeda hadday shaqana weydiinayaan kama carooneene dekedaiyo waxaan siin lahayn qubaca diinteeda maraakiibta ay soo gateen baan dareensaday aryaadhaha badba ma lehe etoobiya intay maraakiibta geyhe tan maadaa ka ega aanigu xigi waaye aryama baddaydaa etoobiya u soo dhawaa kartaa abiy axmed suu sheegaya geeska afrika waa laisleeyahay ilaahay idinma qarxiye